mid ka mid ah safaradii ugu halista badnaa kaasuu bili aadan galo waxaana lagu safri doonaa dhulkeen ah oo cidla ah waxaan rajeynaa muuqaalkan haddaa fiirsatid inaadan weligaa wax tahriiba isku daynin oo aad dalkaaga joogayso sidoo kaleetana waxaa muuqaalkan ka faa'iidi doontaa qiso cajiiba taasoo ah inaadan weligaa laa qof yasi doonin ood qof walbo madaxa saaran doonto sida oo kaleetana waxaan idinka codsanaynaa inta aynan muuqaalkeena ama safarkeena aynan guda gelin inaad channel YouTube-kan subscribe noo saartaan safarkan ayaa wuxuu noqon doonaa mid aad u halis badan oo lagu safri doono dhulkeen ah mararka qaar noqonaya mugdi oo haddii isha farta lagaa geliyo aad waxba arkaynin sidoo kaleetana ay joogaan bahalo halis ah oo dadka cuna balse laakiin dadka meeshan jooga ayaa waxay ku badbaadi doonaan qaab halis ah let's go filimkeena aan guda galno si fiican u dhegeyso si fiican u fiirso waad mahadsantihiin wuxuu ku bilaaban doonaa ninkan la yiraahdo John sa u jeedin wuxuu joogaa meel keen ah oo cidla ah hadda waa maalin laakiin waxay soo noqonaysaa mugdi sa u jeedin waxay noqotay mugdi meelihii dhanna waxay wada noqdeen wada madow hadda laga bilaabo waxaa bilaabanaysa cabsidii saxda ahayd runtaada ayaa bilaabanaysa ila arka waxa dhici doona dhulkii dhan ayaa madow noqday qorraxdii way dhacday habeen ayaa noqotay wuxuu isku dayaa John inuu geed kor geedkii ayuu ka soo dhacaysa u jeedin geedkii markuu ka soo dhaco wuu dhaawacma oo injury ayuu noqonaa markuu dhaco maxaa dhacay dhiig markuu ka imaado macala bahalada ku soo urunayaan bahalada markay ku soo uriyaan way ku soo raadsanayaan hadda John waa dhaawac geed hoostiis ayuu yaalaa sa u jeedin dhiig ayaa afka daadanayo meesha waa cidlo hal qof ma joogo bili aadan ma joogo waa cidlo ceersila sa u jeedin waa kan cidla waa John waa musaafir sa u jeedin ninkii John aha saas ayuu ku baxay saas ku dhintay gabartaana u jeedin waa Mina waxay adduunka ugu jeceshahay ninka la yiraahdo John shimbirtaana u jeedid waxay dhahaysaa shimbiray saadaalin samee oo waxaad kaliya hal mar afka ka dhaxdaa ama aad ii sheegtaa meesha uu ku nool yahay John maadaama John raadinaysa alla jacayl dhib badana oo jacayl xanuun kulula waxa fahmi kara la jacayl wuxuu yahay qofkii soo arkay gabarta sa u jeedin Mina waxa wajigeeda ka muuqda murug aad ka dheehan karto indhaheeda iyo sidoo kale maxaa dhahay madaxeeda shimbirta sidoo kale way fikraysaa sababtoo shimbirta shaqo badan ayaa laga rabaa marka Mina waxay isku dayaysaa inay meel xaflada tagto say John u raadiso meesha xaflada ay tagaysaa dhalinyartii iyo wuxuu saaxiibaha laha dhan bay wareysanaysaa waxay dhahaysaa John meel ma ku sheegtin John waa la waayay John waa nin ileen tahriib oo keen galay ayadina sa u jeedin xaflad wax bay ka soo weynaysaa waxay go'aansanaysaa inay laftirkeeda soo baxdo oo ay keenta imaato keenta waa keen cidla mararka qaar roob ka da'ayo mararka qaar maxaa la dhahaye bahalo ku imaanayaan mararka qaar sidoo kale maxaa la dhahay halisteed ay aad u badan tahay laakiinse dhibaatada jirta waxay tahay keentan qof bili aadan oo nool laga helo laakiin waxa keentan laga helay hadda Mina ku sugan tahay u jeedno wax bili aadan oo kaasoo dadka cuna haday neeftiisu ku soo gaartana maxaa la dhahay aad qaadaysid jirro aan inaba caadi ahayn ama jirro halis aad qaadaysin sa u jeedin hadda Mina way cabsanaysaa John ay raadinaysaa alla jacaylku dhib badana John ay raadinay laakiin John aawahay John waa nin mar hore lagu kala tagay oo lagu kala baxay sa u jeedin keenta ay ku wareegaysaa waa keen cidla ah dhinac walbo hadaad damacdid inaad u lugaysid waa inaad ugu yaraan socoto 7 maalin 8 maalin laakiinse wax gaari aad raacaynin sababtoo ah meel gaari lagu raaco ma lahan meel oo wada aan ma lahan wax bil aadan kuma nool saad u jeedin waaga ayaa bariyay odol raamtaqana fulu iyo Mina ayaa hadda isla socdaan labada isla socdaan waxay leedahay Mina fulu waxa ugu taageertaa kaliya wax fikrada taas oo aan John ku heli karo ama meel uu John joogo lagu raadin karo laakiin John ma noola ninkii John la dhahay wuu ku daay oo uu tagay oo sa u jeedin geed ayuu ka soo dhacay ka bacdo xayawaanada ay sooreen way cuneen hadda meeshan waxa ku qoran boorkan meel laga soo laabto malaha oo meel loo laabto ama loo laaban doono ma jirto Mina way yaabantahay Mina waxa ka go'an John raadiso duqdan weynta ay la joogtaa duqdan waxay weydiinaysaa keentan waxaan rabaa inaan geed u baaro meel walba inaan istaago ugu yaraan kali inaan helo meedkiisa laakiin ma helayso meel yar oo waxay tagaysaa oo dad refugee ama sa u taqaanin qaxooti ay ooteen iftiinkan la istaga wiilkan oo lagu magacaabo Taajar ay wax sharaxayo wiilkan ayaa wuxuu dhahaa hadduu John nool yahay waa la heli karaa
balse laakiin hadduuna nooleen riqdiisa lama arki karo oo isla markaaba xayawaanaad ama bahalla ayaa cunayaan laakiin hadduu nool yahay basaa la heli karaa miina ayaa tala soo jeedinaysa waxay dhahaysaa aan tagna keenta oo aan qaylino oo aan dhahno joino adhahan waxaa laga yaaba haddaa joino john dhanu hadlo hadda way qayline joino dhehe join intuu joogaa join ma maqlaayo ayadana mar walba waa gabar wax jecel dumarku waxaa la dhahaa ragga way ka naxariis badan yihiin mar walba waxay isku daysaa inay join codkiisa maqasho marka godkaana hadda u jeedin waa godkan waxaa la dhahay waxaa qoteen dadkii Mexico kasoo tahriibi jiray America usoo tahriibi jireen marka gabartan ayada lagu mutaqana crate waxay dhahaysaa join wuu nool yahay waana heli doontaa miina ha ismurjinin miina ii farax marka miina maxaa la dab iyo wax shidanayaan wax la cunana karsadaan isku dayaan ninka hadal socona Daniel Allah oo u jeedin Daniel ay wuxuu dhaha ninkan ha isku murjinin waa iska caad haduu noolaadana waa sali doontan haduu dhintana anoo ka fiican ayaa joog oo ninkan maxaa la Daniel damac ayaa galay meesha inuu aleena ku jeclado isku dayaan hadda laakiin meeshii dhan way qasantay oo taladii dhan way xumaatay oo booska join waa laga daryahay muraad isku fiirina aleena miina aan dhahe miina muraad isku fiirina marka muraad isku fiiriso waxa u soo baxayso geeri ama dhimasho way baxaysaa waxay rabay murugoon sariirtay tagaysaa way istaagaysaa waxayna go'aansanaysaa oo u sheegaysaa duqdan iyo odayga iyo maxalla Daniel iyo maxalla Crete waxa dhan waxay u sheegaysaa in ay baxdo oo ay u laabato keenti ayna saas ku tagaan keenti ayna soo laabasho lahayn kaliya raq iyo ruux mid ay John helaan ayagana waxay go'aansan inay saas keenta ku soo galaan oo keentan masaafir ku soo noqdaan ilaa ay ka soo gaarayaan dalka America walibeetana dhinacaan iyo Mexico ilaa ay ka soo galaan inay keentan ku jiraan ayna keentan ka baaran haday helaan alxamdulillah haday waayana ayaga laftirkooda dhintaan sababta no return waa meel loo laabto malaha waata hadda miina waxay sharaxaysaa waxay leedahay meel loo laabto malaha meel loo noqdo malaha kaliya waxay dhahay hadii ay bahalana soo weeran aan godkan gallo godkan waa u jeedin godkan bahalada looga badbaada aan godkan galle dhahay balse laakiin waxa soo socda wax cajiib ah kaas oodan weligaa dambe qof yeesi doon qofna aan wax dhihi doon miini iyo waxay ku badbaadi doonaan wax aan la yaabi doonto sababtoo ah keentan waa mugdi qorrax ma jirto marmar ay qorraxda soo baxay ugu qorraxda waxay soo jeediyay oo qorraxda la arkaa ama qorraxda ay muuqanay wax ka yar 20 daqiiqo ama 30 daqiiqo inta kale mugdi ay ahaanaysaa dadkan kale dhanna waxa hiilo u yihiin oo mar walba inay masaafir la noqdaan oo keenta ay kula jiraan ay rabaan miinana u hayso John ayay jeceshahay Johnena maxaa lahayn ay ku dhimataa marnaba ayna ka maarmin hada Daniel oo maana duqdan wuxuu dhahaa way waalan tahay maxaa la dhahay gabartan oo la dhahay maxaa la miina nin oo dhintay ay nagu wareerinaysaa ma nin ba adduunkan laga weynaya adduunka laga weynaa duqda xitaa waxay dhahay way waalan tahay maxaa sameeyna laakiin dhibka jiro wuxuu yahay maxaaba hadda la isugu qeylna meel loo laabto ma jirto keentan inta hadda aadna waa keen TV-ga ayaa waxay arkaan TV oo qarboosh oo meel iska yaala meeshan oo nalka oo jeedid oo meel iska yar dhisana oo koronto iskale oo si dabiici ah koronto iskale ay meel TV iskaga arkayaan TV-ga marka arkaan way daarayaan marka TV-ga markay daaraan waxay ka arkayaan oo qisaska oo looga sheekeynaa dadkii masaafirka ahaan jiray ee awal meeshan soo mari jiray waxaana loo sheegayaa in aysan jirin meel loo laabto iyo meel loo socdo toona balse laakiin ay markaan u baahan yihiin kaliya in ay dadaalaan oo magaalada Harmaback ee isku dayan inay gaari karaan balse laakiin haday keentan ku sii jiraan keentan ay halisteedu badan tahay ayna mar kale mugdi noqonayso haday mar kale mugdi noqonaysan waxa jiraan bahalle dadlamooda dhaw oo dadku kuwaas oo kaliya ku taabanaan halka mar ku taabtaana hal xabo haraga ma kugu haray haraga dhan ay hore u qaadanayaan waa haday ku taabtaan way haday ku cunaan maxamed miina waxay dhahay miina waxay sharaxaysaa u jeedada miina waxay dhahaysaa aniga waxa rabaa inaan dhinto marnaba inaan noolaado ma rabi inaan John ka harana ma rabi bas marka hadana TV-ga la daara TV-ga lagu arkaa salahan lugahan waxa loo aad ay u taageen ama laga wada dadkii meeshan ku soo masaafiri jiray ama ku soo lugun jiray ama safarka lugta ku mari jiray dadkaas inta badan meesha kabalaan ku mari jiray dadkaas markay meesha kabalaan ku naan dadkaas laftirkooda qaar ayaa bahalo noqon jir oo bahalo la moodku ku darsan jiray marka dadkaas markay bahalo la moodku ku darsan ayaga laftirkooda ayaa dadka cunaan hadda marka wax alla wax ay sameeyaan ayay garan weynayaan meeshan ay hadda soo galeen ay ku jiraan waa meel hadaan ku dhahay ka waran markaan ku dhahay dad hayasin waxa meeshan dhisteen oo ama sameysteen dad oo awal refugee hayn oo dalka Mareykanka laga soo buriyo ama dalka Mareykanka laga soo ceeriyo ayaa meeshan dhisteen waa meel nal dabiici ah lagu noolaan karo mar walba marka miiniga keentan hadda ku jiraan keentan marka mar walba waxay sameeyaan in ay
keenta markay gal ee bahal arkaan ay soo cararaan ay meeshaan soo galeen meeshaan waxaa lagu dhahaa luuqada gala baankar waa meel caan ah marka meeshaan soo galayaan meeshaan ay uga badbaadeen sida had u jeedin gaari ayaa wata maxaa la miina laakiin waa been gaarigan wax runa ma ahan sababtoo ah gaarigan waa riyo ku riyoonaysa markay gaariga iska wadinayso nolosha raaxada ay ku jirtay bay ku riyoonaysa aad waa ka u jeedin miina keenta cilada ay joogtaa waxayna goobaysaa raq iyo raad intee ayuu ku nool yahay John laakiin John wuu dhintay ugu dambeyn laakiin waxaa la dhihi jiray sirnaag lagama jiray sirnaag lagama salgaaro hadda marka la ku celiyo maxaa la dhihi jiray sirnaag lagama salgaaro TV-gan ayay fiirsanaysaa doctor waxaas dhageysanayaan maxaa la godkii mar labaad u soo laabanayaan godkii markay mar labaad u soo laabtaan markan waxay ku fikiri doontaa Alina inay ama xiriir la sameeyso ninka la dhaha Daniel ahdaati idin sheegay Daniel isku day in xiriir la sameeyso waa ka Daniel oo u jeedin waa wiilkan yarka ah Daniel isku day in xiriir la sameeyso oo saas John uga sameeyto waxaana qalqaalad ugu badan geysanay islaanta weynta habarta u jeedin waxay dhahe markan Daniel xiriir iskala sameeyay anagana meel u laabana malahan ee magaalada ugu dhowsaan ku gaarlan aan isku dayna John aan ka samirno sababtoo ah John wuu dhintay ay dhahay sidoo kale marka ay keenta soo aadaan Miina iyo Daniel iyo islaanta iyo gabarta marka inta badan keenta soo aadaan duqa marka keenta soo aadaan mar walba waxay ku badbaadaan dadkan refugee-ga ama dadkii qaxootiga ee laga soo buriyay Mareykanka meesha dhisan oo banker loo yaqaan meeshaas ay ku badbaadaan hadda marka waxaa la gaaray waqtigii keenta ee cabsi sii noqon lahayd keenta maxaa la halisteed sii badan lahayd keenta cabsidu sii badan lahayd keentiin ay mugdi noqon lahayd bal arag waxa dhacay keenta ay mugdi noqonayso Daniel wajashooda mal arkay iyo Miina iyo wajashooda marka bahalkii ku soo baxay muujeedino bahalka soo baxay marka bahalka maxay ugu badbaadaan meeshii galeen meel iftiin ku dhex jiraan muujeedino meeshaas iftiinka bankarka ay ku jiraan meeshas iftiinka ay mar walba uga badbaadaan meeshas iftiinka ku jiraan saas iftiin ku dhex jiraan bahalku ku dul wareegaysanaa ayaga laakiin iftiinkan isugan hal mar soo horjeesanayaan marka waxa yaqiinsan inaan weligood qof dambe la yeesin sababtoo odayga weynka ay wuxuu uga sheekeynaa meeshaan inay dad qaxootiga dhiseen maanta dadkaas qaxootiga aan ku badbaadna dalalkana dadka qaxootiga laga burinayana in ay tahay nasabnimo xumo iyo dadnimo xumo wuxuuna sheegayaa in qof walba bil aadana uu yahay kama dambeys ama wax la ixtiraamo inuu yahay sidoo kale qof walba bil aadan waxna uu qaban karo waxna uu dhisi karo waxna uu keeni karo islaanta ayaa hadlaysa sidoo kale waxa sheegay waa ku raacsanahay odayga waxayna dhahe madaxdeena iyo dadkeena dadka inta badan soo galootiga way nacbiyo balse laakiin waa inay jeclaadaan maanta anaga meesha iftiinka yar ee ku jirna ee bahalku nagu dul wareegsan yahay dad qaxooti ayaa dhiseen taas baalada soo jeedin sa ugu dul wareegsan wajidan baaladii ayaga laakiin meesha ku jiraan hadda maanta Daniel bay raadin karaan waa may Daniel yaa dhihin maanta John may raadin karaan waa may John waa laga samray ayaga inay gurgurtaan isku daan meesha ay ka fiirnayaan iftiinka siriis ka fiirnayaan muujida baaladii arkayaan wixii arkayaan bismillaahir rahmaanir rahiim nolosha dhan ayaa waxay ku noqonaysaa cariiri iyo mid aad u xun nolosha dhan ayaa ku adkaanaysa meel ay ka baxaan ay raadinayaan wajida Miina meel ay ka baxaysa hadda Miina jacayl ma sababtoo ah jacaylka waxa ka darrada nafteeda hadda kaliya waxay taagantaa si ku badbaada si ku noolaada hadday baxaana baaladan hal mar ayay cunayaan muhiimadda ugu weyn waxay tahay filimkan kaliya qof bil aadanaysan sababtoo ah qof bil aadan ah oo qaxooti ay la soo buriyay ayaa wuxuu dhisay goobtan oo baagar lagu magacaabo oo qaab bakhaar cam u dhisan oo iftiin dabiici ah oo u jeedid inay ay ku badbaadaan maxaa la dadkan awal isla weynaa Yurubiyaanka ee safarka galeen ee ay ku badbaadeen qisada dhan ee filimkan ayaa waxay tahay in aadan qof hiisin sidoo kale tan hadaad qof jeceshahay inaad ka maarmin oo nolosha halis walba iyo dhibaato walba uga gashay sida Miina ay sameysay oo kale wiilow gabaro qof aad jeceshahay adiga dhibaatadaas ma u gali lahayd waana mahadsantiin bye